sida uu yiri faylasufkii qoraagay Sacuudiyaanka ahaa ee qoray buugga Weynee Maskaxdaada, wax walba oo adduunka jira waa wax macno yar. ama si kale haddii loo dhaho laa tahtam bisaqaa'ir al-umuur fa kullu al-umuuri saqaa'ir. ha ku mashquulin arrimaha yaryar, sababtoo ah wax walba wax yaryar. waxaa laga yaabaa annagu inay dhacdo qofaa isqabanaysaan maalintaadii oo dhan inuu kharibo, aad la booqday la dagaashay seesaa ii dhaha muxuu ii maray kadibna ay kalifto in aad dagaal qaatid oo qorshayaashii maanta aad lahayd oo dhan aad ka lugtid. waxaan xasuustaa koobkii adduunka 2006 oo waxaan taageerayay xulka qaranka Faransiiska. ciyaartaas waxay ahayd ciyaar aad iyo aad u xiiso badan. sidoo kale waxaa ku jira laacibka aan sida gaarka u taageero Zinedine Zidane. ciyaartii way ku adkaatay, ciyaar dheer bay noqotay, saasoo ay tahay xulka qaranka Faransiisku ciyaarta ku gacan sareeyeen ayaga hujuumka lahaa iyo weerarka, balse ciyaartu waxay isla gaadhay waqtiga siyaadada ama extra time. taas waxay kaliftay in ciyaartoydii ay aad u daalaan, kadibna uu jiro tension ama culays nafsi ah oo daalkii iyo baqdinta natiijada in maaragtay si kale qolada kale ay raacda ah baa koox walba ka baqaysa. waxaa dhacday marka in ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara xulka Talyaaniga oo ahaa ninkii bareejeeyay xulka goosha xulka Faransiiska Materazzi uu Zidane ku tuuray hadalkaas cidna ma ogeyn, gadaal uu ka sheegayaa. wuxuu hadalkaas kalifay in Zidane uu ka tago wacyigiisii iyo caqligiisii iyo laacibnimadiisii iyo kulli dhaqan maaragtay ka baxsan maaragtay levelka uu joogo ayuu ku dhaqaaqay. waxa uu haradi halka shafka uga dhuftay Materazzi, taas oo dhaxalsiisay xulka Faransiiska in kaarka cas laga siiyay xidigoodii weynaa ay wada daawanayeen. inkastoo Faransiiska aan goolka laga dhalin misana ciyaarta waxa la isla gaaray dhankaas iyo gool kulaad, waxaana halka ku haray xulka qaranka France. koobkana wuxuu raacay xulka Talyaaniga. qisada waxa ku jira ama ciyaartaas waxay ahayd waxyaabaha qaybtood falcelinta aad sameynaysid iyo dhibaatada aad sameynaysid iyo sida aad maaragtay u dhaqmaysid. waxa u baahan tahay in aad la socotid, aad develop garaysid dhaqan ah in uu qofku wax qiimeeyo. qoraaga Mareykanka ahna faylasufka weyn ee ku guuleystay bilada Nobel Peace Prize mudane Daniel Kahneman buugga Think Fast and Slow qoray. markii aad buuggiisa eegtid maskaxda qofka bini'aadanka ay sidoo wax u qiimeeyo wuxuu kala qaaday labo, system 1 iyo system 2. system 1 waxa weeye caqligan joogtada ah ee ku saameysmay khibradda iyo waayo aragnimada wax walba la sameeyo sida degdega uga falceliya. su'aalahaan kale waxba lagu leeyahay isla markiiba ka jawaabaysa adigoo ku dhisay aragti iyo waayo aragnimo waxa soo aragtay ama soo akhrisay oo aad taqaanid. system 2 uu ka duwan yahay systemkaas. waa systemka qofku inuu wixii roogo qiimeeyo, calaliyo, rogrogo ka fikiro oo si fiican u dhuuxo. marka qofka asaga oo isticmaalaya system 2 ayuu wuxuu awood u yeelanayaa in uu maaragtay waxyaabaha dhacaya marka uu ka falceliyo isagoo dhuuxaya, eegaya, rogrogaya. nin ka mid ah asxaabtayda baa waxa uu dhaqan u leeyahay marka uu hadlayo bababsiya hadalka wuu jiidaa, wuu gaabiyaa, tartiib u hadlaa. dadka yaqaano oo dhan aad bay ula yaaban yihiin. maalin dhaweydaa sheekaysanna wuxuu ii sheegay marka wuxuu yiri niyahow waxaan aad uga fiirsadaa hadalka oranayo. ninka inta arkayay ma xasuusto hadeer asagoo hadal uu ka dhacay. waa dhaqan wanaagsan qofku in uu marka uu hadlayo, markuu ficil sameynayo uu system 2 maro, uu eegto, qiimeeyo, rogrogo, dhuuxo, kadibna uu yiraahdo ama sameeyo falcelintii ku habboonayd. intaasaan jeclaa inaan idin la wadaago. fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkan la wadaag asxaabtaada. mar walbana waxaa inoo ballan ah in aan ku dhaqanno oo aan isticmaalno ka fiirsi iyo rogrogid. subax wanaagsan.